wafduu sahor ka hay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekhadan geek hadeeri guda magaalada Baydhabo kureed madiyo dhawaan ku qayb galeen shirkiilin ku dawahay ayuu dalka Israa'iil ka gabagabay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose may bana safarka madaxweynaha ku heliyay xubno ku tirsan golo wasiirada xukuumadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kamid hayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta Ugaas Xasan iyo wasiirka wasaaradda baabuurka cirkiga dhulka Cabdullaahi Black baawar booba dageenka shaati gaduud airport magaalada Baydhabo iyo Swingland ka dhawaay madaxweynaha iyo xubnaagii u soo horkahay madiyo hadeereen madaxweynaha xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya may bawsa salaan sharafeed ku qaadaday ciidamada ilaalada madaxtooyada oo soo horkahay taliyaaga ciidamada Cornel Abdulnaasir Shariif Jamaaluddin ciidamada gaarka ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya oo diyaar ah inay qabtaan shaqadooda waajibkooda qarannimo mudane madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Shariif Sheekhuuna Maye oo sukumidahay mas'uuliyiintii hadhawaayay madaxweyne Shariif Xasan iyo ku horeen ku hadalay shirkad jaraa'id oo madaxweynaha saxaafadanka ku warbiyay safar shay xildhibaanada baarlamaanka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wasiirada bahda saxaafadda ururada bulshada odayaasha dhaqanka dhammaan inta ka soo qayb gashay soo dhaweynta madaxweynaha waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii madaxweyne hadalka intiisa badnaa waxa sheegay wasiir Maxamed Xasan Fiqi marka waxaan halkan isugu nimid inaan ku soo dhaweyno magaalada Baydhabo wixii gaaro insha Allah oo ku saabsan muddadii aan kala maqnayn waxyaabihii soo kordhay waa dib baan iska wareysan doonaa madaxweyne waxaan ku leenahay ku soo dhaw magaalada Baydhabo wasiirka wasaaradda beeroy waraabka waana haysi ayaaga xilka madaxweynaha intiisa maqnay Maxamed Xasan Fiqi yasaas oo kala ku hadalay qaabkii iyo sidii howlan dareertay intii uu madaxweynaha maqnay mudane gudoomiye ku xigeenno golaha wasiirada golaha baarlamaanka odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhalinyarada saxaafadda dhammaantiin ciidamada saxaafadda waxaa markuu horeyso madaxweynaha ku soo dhaweynaynaa magaalada Baydhabo hawsha caadi waayo alxamdulillaah rabbil caalamiin adaa safar noogu maqnaa wixii war ah waa la kala qaadan doonaa saan rajeynayno balse meeshaan waxaan u soo istaagnay oo keliya inaan kugu soo dhaweeyo si aad micnaha wixii warbixin ah ee aad shacabka ugu tala gashay aad u gudbiso mudane madaxweyne ku soo dhaweeyo Shariif Xasan Sheekhadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaan ku dambeyntii ku warbi saxaafadda safarka kiishay waliyaabaguusan qabsoomay intii soo maqnay ilaahay mahadle ilaahay kii nabadiskan sheegay ma nagaana runtii gudoomiyaha baarlamaanka iyo kusimaha madaxweynaha iyo wasiirada xildhibaanada dadweynaha iyo mashiishil duwan haweenka assalaamu calaykum runtii ardayntaasi kama nagaanaysan dhawaytangeeda ama sitiin runtii marban dhawaytangeeda kama sitiin siisan dhawaytan shir anigu waqtiga way ku qeyb galay shir oo magaalada Jubbland ku magaalada Kismaayo runtii shirkaasi oo maamul goboleedka dhamaantood iska qooyaan runtii shir oo muhiimadiisa lanahay hadalaya arrimaha Soomaaliya sida nabadgelyo sugo siyaasadda arrimo federalism kasta la hirgeliyo runtii badan oo hadalay shirkisa feelaha ka dhamaaday kulli shaqada ku saaray warsaxaafadeed wayna jeelaha inay oo kaalintii wallahi qaadanay wallahi waxaan ka idinay qayb galnay shirkisigan wali baan aragay shir oo masiirka ummadda Soomaaliyeed ku turjumo nagada doonana dhibaatooyinka talaka jar iftiinka oo ku bahalay inuu nagada mufaajayana madaxweyne Shariif Xasan Sheekhadan yimay baa uu hadal qaaday arrimo ku saabsan howlo maamulka koonfur galbeed iyo waliyaabagu in qabsoomay may baa soo baaqan daray dad gaar ah oo sheegay in la dakaayeen hor socodka howlo maamulka iyo xasiloonida ku jarta gobolada ku aramiyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya badan oo diiradda la saaray baay'ad amniga salaso sahan dawladdiidka oo dhibaatooyin ku badan ay dhibaatooyin oo wadankii oo dhan jirtiisa walaajay shaqeeyeen wadankii iska furmayna wadankii oo
مدتهم حفصة أكر كفرهم كجرته ميل مرة كرة لله يعني السدة معمولة iyo dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka ama Soomaaliya iska ashada oo arinteeda ay hagaajiyeen oo hadda wadiidka ugu adkaaday runtii iyadan kama nagaan amisom dadaalkii dawladda iyo ciidanka militariga iyo booliiska iyo sugidda iyo maamulada runtii iyo shacabweynaha qaybashay shirkooda nabadgelyada arinteeda ay qoodani marka madaxda iskoyti weelis la goroday maamulka dhan inay runtii si dalka tahay in walba ku bedelo oo dagaal midaysan oo dhinu walba la inay oo shabaab la gala oo dalka sidii la xureeyay faday wada hadala amisomna waqtiyada dhow ciidamada wal yaraay mal yaraay way meel la ku waday in amisom waqtiyada la yaraay faday deern oo hadda amisom inta la xoojiyo ciidamada la kordhiyo qalabkii oo dhimbil la siiyo amisom dadaal badan iyo suuq la siiyo dalka dhamaantiisa la xureeyay lahaay inta dalka badalay wali kale ee diiradda la saaray federalism una maamulo iyo Soomaaliya dhibaatooyin badan dawlad dhexe oo shileedii oo central ah wal aragay Soomaaliya horumar la gadeeri marka geedi roor laga qoora meel reeyay hadana roor la ku deegay marka dawladda dhisantay meel dheer deerti roor la ku deegay Soomaaliya meel seeto wala arabahay marka wada tashi badan ma dil galay artila ku bilaabo ilaa iyo meel badan la fadhiday la taladay in federal la qaadiyo federaalkii sugahay marka inay afnagana federaalka si federal ka shaqeeyo sharciyada la ka shaqeeyo oo sanaga oo badan la hadalay hayti runtii idada ma santin ona din reer koonfur galbeedna federalism ka wali baan aragana dadka oo wulishona qalbiga ka jaray sidoo horna qalbiga ka jaray oo aragaa in Soomaaliya federal ay ka noolada federal ay horumarka aasiyaana federaalka ilaalsan marka federaalka hadii boo dhab la hirgeli wadanka nabadda nagada lan kasta bana xornimada si sharaftiisa marshayla reer koonfur galbeedna hadii federalism hirgala dadkan ka faa'iideeya nagada doonada kariif malku dulwi malku dad badan marka malno ku aan wala oo dhulka ka jiro oo kheyraadkeena malku badan beeri iyo webi malku badan marka maamulkan ka faa'iido oo horumar iyo dhaqaale inta ku haysan marka saas dartiya uu federalism ka dhigay marka la isfaraan in amniga la kuma shaqeey runtii Soomaaliya dhibaatooyin ka maran waliba aaminsanay inuu ku baxo federalism ka xoojiyo siyaasad degan oo ummadda ka wada noolada dad badan oo wali arag hayna dhimbil ka dhadheelo laakiin dhimbil kor galantiska ka wada ka dhadheelo ma hayko marka waliba lana dhimbil ka dhadheelo ha isku dhaafay wal wadankan siyaasad degan iyo amni iyo isbedel maamulku kan muddo shaqeey meel soo bilaaban wal gorda meel soo tiroogan wal gorda laakiin inkira iraha badil lagna galantismo wala qobani hadii uu neenan sheego inuu sheegana waliba lagna ma ku qarsan waqti dhiman waqtigaas oo soo dhimaastay wali galansiga laakiin bedelo waqtigaas si sheeday inuu soo dhaxalto laakiin uu maamulku wal dhaxalnay wal bilaawan ila beer laakiin uu ka dadka jaran yoon uu marka eedada ma santin الله ولي يسينا وأوكي وقتي يسينا نجانا ويبنا رجعنا إنه كده أنا حبكين لقد هفتي اللي بدنا نقول غفتي اللي بتوه غفتي حندو مديد كه جيك هالدجال بس نبنا كاسن ماي ولي بوكا والشباب اللي مدي وندول النبل مديد ومدون تانعك الشقة يسدوا يسني مدون تانعك مالك فكره هاي إن الشقة وربنا اللي يسوبي إن حرمر بنا اللي يسوبي ربنا لك فكره هاي مركوي رجعنا أنا بقول قلنا نجانا dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Maduusu kooy kureed mabowso booqashay kormeer ka saaday xafiisiyo leeyin dawladda koonfur galbeed oo hata la ka hergeliyay agaarka madaxtooyada koonfur galbeed may ban socdaalka kaasay ku heliyay xubno ku tirsan goloshay wasiiradii xildhibaan ku tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo san ka horay Sheekh Maxamed Nuur Sheekh Madoobe dhawaan la filahay inay galantalo ku qaada dhismooyinka cusub ee la kuweynayahay xarumo iyo xafiisyada iyo waaladaayaan golo wasiirada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed Baydhabo.